maanta waxaan u dabaaldegaynaa 26 Juun waan faraxsanahay inaan u dabaaldegno maanta wadankeena iyo khayradeena niideed maanta ma soo koobi karo saan faraxsanahay dadka dhan meesha dhan waa calan maanta waxa leeyahay ummadda Soomaaliyeed dhan waa inay joogtaan meeshaan ay ka dhigtaan meel baabuur marweysina la arkaal doona waa gartay wadooyinka saan ma loo dabaaldegi jirin saan ma loo dabaaldegi jirin maanta laakiin qasab waa in loo dabaaldego oo baabuurta la joojiyo wali isbedel weyn ayaa jira dadkeenu waxay muujinayaan biseel jaceylka wadaniyada iyo waliba inay ka soo horjeedaan in mar kale iyo dalkan in rabshado dhibaato loo horseedo muqdisho waa sidee caawa xaaladu waxaan ka sheekeyn doonaa maalmaha farxadda iyo xurriyadda oo caasimadu si weyn looga dareemayo muqdisho caawa waa jaam meel kastoo aad tagto waxaa kaaga horeeya calanka buluuga dhalinyaro aad u da'yar iyo sidoo kale haween aad u badan oo ku labisan calanka jamhuuriyadda haddaba muuqaalkeena caawa waxaan isdul istaagi doonaa isbedelkan iyo waliba sidoo kale in dadkeena Soomaaliyeed sanadkan si ka duwan inay u xusaan maalmaha xurriyadda waxa sababtu ah 61 sano guurada ka soo wareegatay xornimada Soomaaliya ay ka qaateen dalalka Ingiriiska iyo Talyaaniga waxaase caawa muuqaalkeena isku dul istaagi doonaa isbedelka qiirada leh caasimadda ka jira dadku maciga ayaa gartay mise waa la soo abaabulay wadooyinka caasimadu waa wada calan waa wada jaam kuma suurtagelayso in si sahlan aad ku gaarto goobta aad rabto tusaale haddii aad ka baxdo xeyndaabka madaxtooyada oo aad doonayso inaad gaarto lambar 4 markii hore waxay kugu qaadanaysay ilbiriqsiyo ama waqti yar kooban laakiin hadda waxa laga yaabaa inay kugu qaadato hal saac ama wax u dhigma sababtu waa dadkeenu oo caawa u dabaaldegaya maalmaha xurriyadda gaar ahaan 26 Juun muuqaalkeena ayaan ku dul istaagi doonaa isbedelka jira iyo waliba sidoo kale dhalinyarada haweenka caruurta oo intooda badan si weyn social media kaga muuqda astaanta calanka jamhuuriyaddu macaasimadda kaliya mise gobolada ayaa la qaba isbedelkan dhalinyaradu in hadda ay ku soo baraarugaan muhiimadda iyo micnaha xornimadu ay leedahay oo calanka Soomaaliyeed lagu labisto la weyneeyo qiiro la muujiyo maxaa sababay 3 arin ayaan kaga hayaa oo hadda ku qasbaysa dhalinyaradeena iyo waliba in heerkan la gaaro door intee leeyahay ku leedahay social media iyo aalada la daawado ee TikTok sheekooyinkan ayaan isdul istaagi doonaa saaxiibayaal ku soo dhawaada boggiga gaarka ee Facebook haddii aad saaxiibo nagu xirnaa ku mahadsanid saaxiibo cusub haddii aad nagu soo bir si share garay muuqaalkan si saaxiibo kale wanaagsan adigu kale ay noo soo gaaraan muuqaalada iyo codadka dhalinyarada ayaan idin soo gudbin doonaa toddobaadka xorriyadda ayaa caawa noo bilaabanaysa 26 Juun ayaana caawa saqda dhexe calanka dalka Soomaaliya laga taagi doonaa markaas loo dabaaldegi doono xorriyadda markay qaateen gobolada waqooyi ama deegaanada Soomaaliland inkastoo Soomaaliland halkaas aysan ka jirin dabaaldeg weyn sida Muqdisho oo kale sababtu waxa lagu qeexaa inay tahay in ayagu isku haystaan in Soomaaliya inteeda kale ay ka go'een ay u dabaaldegayaan 18 May laakiin isku ma haystaan in caawa kale ay tahay muhiimadda ugu weyn ee dabaaldega gobolada waqooyi laakiin dhaqdhaqaaqa jaamka dabaaldega micnaha calanka iyo jaceylkiisa caasimadda ka jira kama jiro magaalada Hargeysa waa maxay farqigu oo ku soo koobaya farqiga ugu weyn ee arintaas u dhaxaysa ayaa lagu qeexay in Soomaaliland isku haystaan dal madax bannaan oo Soomaaliya ka go'ay inkastoo adduunyada aysan ka helin ictiraaf ama in loo aqoonsado dal gaar ah oo Soomaaliya ka go'ay oo aysan ilaa hadda 19 ilaa hadda aysan helin ictiraaf gaar ah laakiin ayaga ayaa u dabaaldega maanta oo kale dabaaldegooda waxay u guuriyeen 18 May markaas oo sheegtaan in xornimo ay ka qaateen Soomaaliya laakiin adduunyada baysan keenin ictiraaf gaar ah oo dalhan loo aqoonsado aan ku soo noqdo Muqdisho markan maxay tahay isbedelka weyn ee muuqanaya saameynta ayaa laga dareemayaa caasimadda sida weyn maalmaha xorriyadda iyadoo magaalada Muqdisho aad ku arkayso caruur haween dhalinyaro iyo waliba dadkaas oo ku labisan calanka jamhuuriyadda taalada daljirka daahson ilaa isgoyska Jubba ayaa waxa isqabsaday boqolaal dad xitaa kuma suurtagelayso inay si sahal halkaas ku marto iyadoo jaamba xoogan uu jiro oo dhalinyaro badan
waliba caruur yaryar iyo dhalinyaro iyo haween ayaa u badan kuwaasoo ku labisan calanka dhammaantoodna kuu sheegaya inay qiiraysan yihiin ay u dabaaldegayaan toddobaadka xorriyadda ma jiro hal mas-uul dowladeed oo dadkaasi ku dhex jira dadka dhammaantood ayaa kuwa isku abaabulay oo taalada jooga laakiin in dadku is abaabulaan oo heerkan la gaaro ayaa lagu qeexay laba arin waa midda koowaad aaladda social mediaha ama internetka oo dalkiinu aad ugu xoogan oo social media si weyn ugu xoogan ayaa qasabtay in qof walba uu soo gasho dharka calanka uu soo tashto halkaan uu tago oo muuqaalo iyo video iyo sawirro uu ku baahiyo baraha bulshada sida Facebooka aaladda la daawado ee TikToka iyo YouTubeka waana waxyaabaha inta badan hadda bedelay raayil caamka iyo waliba dhalinyarada inta badan dhalinyarada ayaa sameynaya muuqaalo kooban oo maalmaha xorriyadda ay ku muujinayaan ayaga oo waliba taalada daljirka laamiga goobaha kale ee qadiimiga tagaya isku soo duubaya muuqaalo soo dhigay baraha bulshada inkastoo meelaha qaarkoodna aan loo ogoleen haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada iyo caruurta ayaan wax laga weydiiyay dareenkooda iyo waxa ay maanta kale ay ka yaqaanaan 26 Juun iyo waxay kaga dhigan tahay iyo wadaniyada ka muuqata aan idin soo gudbiyay qaar ka mid ah muuqaalka dhalinyaradaasi waxaan joogaa bil runtii maanta jidkaan marayay ilaa xamarweynaha u socday marka waa arkay waxaanay runtii soo xasuusisay berisamaadkii oo la isugu imaan jiray Brima Luulio meeshaan iyo 26 Juun baarlamaanka ka cuma baarlamaanka inuu soo burbursan yahay oo aan wali la dhisin laakiin jardiino fiican lagu sameeyay runtii dhalinyarada hadda soo baxday wax badan bay wadanku soo kordhiyeen haddii la yiraahdo sumcadda wadanka iyo muraayada laga fiirinayo sababtoo ah inay dharkii soo xirtaan inay calanka soo qaataan inay bulshada tusaan inay yihiin dad muwaadiniina aadaan ugu bogaadinayaa waxaana leeyahay waxaad tihiin dhalinyaradii mustaqbalka wadanka ilaahay khayr aan idinka dhamaanaysiin maanta waxaan u dabaaldegaynaa 26 Juun waan faraxsanahay inaan u dabaaldegno maanta wadankeena iyo khayradeena niideed maanta ma soo koobi karo saan faraxsanahay dadka dhan meesha dhan waa calan maanta waxa leeyahay ummadda Soomaaliyeed dhan waa inay joogtaan meeshaan ee ka dhigtaa meel baabuur marweysina la arkaal doonaa waa gartay wadooyinka saan ma lagu dabaaldegi jirin saan ma lagu dabaaldegi jirin maanta laakiin qasab waa in la dabaaldego oo baabuurta la joojiyo wali magacayga waa Siraad dareenkayga lama qiyaasi karo aad iyo aad aan faraxsanahay inaa ka qayb qaato dabaaldega dadka dhan ay wada dabaaldegayaan farxadoodana ay ku muujinayaan aniguna waa jeclaystay sidaas maanta u soo baxay maanta waxay kaaga dhigan tahay والله ما لقياس كرا ومالين أد يد وين حرجينا سنة كدم والله سنة كدم برعد إذا ليسي بلعرته مجال ذا الناس ذا سك خرب بدأ أي نقطة Soomaali كبول مجيء وحسن عبد الله مشان نحاول ما يعني فرحة أي كنتي أو إلين ويعني وحسودو ما أنت حريد Soomaaliya قاعدتي 26 June أسودو داد سوايا مرك أنت أو ما ذا السيا مرك إنه فرحة يعني دتك أول قبل الشعب الصومالي ودان واقفة أنت مركات حد أركتوه والله كلنا والله ضد ويجوا فرح سنة لكل ما وما شاء الله ودماشات أيان مركوا كأنه واكمل سنة كوري سنة كان حفرق وكلا دواشة وبحية horto runta daakaad waxa sanadkan ay kuwa oo markano inta waqti qaadanayo dadka Soomaaliya dad farxad kula qaadanaya marka sanadkan saadreemayo markano ma sha Allah muxumo Abdullah Hassan Ali meesha waxa uu maad inuu qaato farxadda dadka dhan la qaybsado oo xornimada qaadanay 26 Juun ku siibeen tahay markii calankeena taagay maanta farxad aad weyn ay tahay marka waa akaasa waxaan halkan ugu imaaday dareenkayga shucuurta oo isoo kiciyay xaafadeeda iga soo waday waa wiil wadani ah oo ishago qaranka darteeda inta keenay shucuurteena maanta ma qiyaasi karo wallahi ma sha Allah maanta waxaan meeshaan keenay waa maalintii aan qaadanay xorriyadda ka xiroonay gumaysigii dalka u badan u gumaysanayay marka maanta oo kale farxaddeeda ma la soo koobi karo maadaama ay ugu jiro dhiig Soomaaliya waxa keenay farxad inaan muujiyo farxaddeeda dabaaldega oo dadka dabaaldega inaan ka qayb galnay
aad ugu faraxsanahay بسم الله الحمد لله وأنا ومجيء محمد داود حسين إيمان والله ما توقف فرحسن هاي ماشان واحد كان وادريم كرتاه والصومالنا ودريم واحد كان ماشان رحلات قدوم والله مرة بنا ورينا وضك الحمد لله حسلون وهي سنة كورس وحيو قدومت هاي سنة هورا أمي استقرار كاس في عمي سنة لكن سنة وراح يسوننا ما شاء الله الحمد لله waagaag sida muuqaalka aad ka arkaysan caruur yar yar ayaa ku jira iyo waliba dhalinyaro iyo haween intaba iyo dad waa ku yaryahay laakiin sidaas ay tahay dad badan oo daraso siyaasadda ayaa sheegay in 60 guurada ka soo wareegay asaaska xorriyadda marka laga reebo 2020 ma jiri 2018 ma jiri 2017 ma jiri 2014 iyo 15 iyo 16 in sidaan oo kale dadkeenu ugu baraarugsaneen muhiimadda ama ahmiyadda xorriyadda in sidaan oo kale الأهمية جار الله صي مركز واحد يكون نانجرتو كليا المسؤولين تو يقبطان مناسبة وين أو تلا ما حرت الدولة ده حاصل لو قد يجوا إن هالكاس نقول بدل المسؤولين تو يجيدين لجوا هنا يتطوعات كحرية كدمنا لجوا كلا تجار لكن هذا تاوي كجودبتي dadka ayaga ya iskuda u soo baxay oo dharkii calanka jamhuuriyadda soo tashtay banaanka jooga ma jira hal mas'uul oo dadkaasi ku dhex jira oo dhiiri gelinaya waxaana muujinay in dadkeenu bisal badan ay sameeyeen munaasabada ayaa ka dhacaya madaxtooyada caawa 12 saqda dhaxayana calanka la saaraya waxaana mas'uuliyiinta dawladdu oo waliba ciidamada ammaanku bay ridi doonaan buller loogu bartay maalmaha xorriyadda in buller la rido inkastoo bullerka laga digayo oo khatar badan ay ka dhalatay oo askarta qaarkood xarasaas ama xabado nool ay ku hoos qariyaan taasoo dhaawacaysa dad badan oo guryaha iyo xaafadaha jooga halis weyn ku noqon karta muuqaalkeena caawa ayaan ku sawirayna xaaladda muqdisho ka jirta oo ay tahay mid muqdishadii la yaqiinay ka duwan jaamka calanka iyo waliba dadkiinu siday u faraxsan yihiin muuqaalkan ayaan ku soo koobaynaa saaxiibayaal sanad guuro wanaagsan 61 sano ayaa ka soo wareegatay markaan xornimada ka qaadanay gumeysihii Faransiiska waa gumeysihii Talyaaniga halkaase waa gumeysihii Ingiriiska anda Talyaaniga koonfurta waana kooda luulyo marka la gaaro muuqaalkan mid lamid ah saaxiibayaal intaan ku kulmayno nabadgelyo u ransi shargareey saaxiibadaada kale si ay nagu soo biraan